السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا intaana muuqaalka wata bilaawin waxaa jira YouTube iiba inayn ogeysiiyo YouTube kaasoo lagu rabo qiimaha inta heshiiska u baahan tahay. Waxaa kala soo xiriiri kartaa ciwaanka WhatsApp-ka lambarka meesha kugu qoran kusoo dhawo muuqaalka. Assalaamu calaykum asxaabta, haddii tahay marka ugu horeysay viewska muuqaalka aad daawatay, like noo saar channelka, waa mahadsan tahay. Channelkana subscribe noo saar, kusoo dhawo muuqaalka. Aniga da'deedu waxay ahayd 17 sano, waxaana sugayay tareenka saan u aado jaamacadda. Markaas kadib tareenka ayaa meesha imaaday goobta, waana galay. Kadibna gambarka ayaa ku fadhiistay kuraasta meesha taalo. Anigoo markaas caajis dareemay ayaa hurdada liiga nixiyay si kadis ah. Markaasi waa naxay. Kadibna khamro ayaa soo ureysay. Runta geeskayga ayaa fiiriyay, laakiin waxaa fadhiyay nin foolxumo badan oo wejigiisana dulduleelo. Runta 3 dhalo oo khamro ayuu haystay. Zaid ayuuna u cabsanaa. Aniga markaas waa baqay, waa naxay. Anigoo markaasi naxsan ayaa waxaa dhahay muuqaal ayaa rabay inaan ka duubo. Markaas san muuqaal oga duubi lahaa falankeeda inaan gala ayaa rabay, laakiinse wuu ogaaday inaan muuqaal ka duubayo. Kadibna telefoonka ayuu soo hor istaagay, wuxuu yidhi macnaha muuqaal iga duubi karto oo caawa ku dhamaatay. Asagoo markaasi idil rabo ayay albaabka dhankiisa shanqar ka yeertay. Runtii Zaid ayaa markaasi aniga u naxay. Kadibna asagana wuxuu rabay inuu i ceenjiyo, laakiinse aniga waa iska kala tuuray asagoo markaasi dhulka ku dhacay oo qaylinayo oo dhahoy iguma buuxsanaysi caawa. Aniga markaas Zaid ayaa u naxay. Tareenkana waa la joojiyay, waa iskaga cararay. Kadibna xawaare sare ayaa ku socday saan jaamacaddu aadi lahaa, laakiinse markaasi kadib jaamacadda ma aadin. Tareenka waa iskaga soo degay. Anoo wadada maray ayaa gaari meesha soo maray. Gaariga ayaana markaasi istaajistay saan u raaca gaariga xaafadda aan ugu laabto. Kadibna gaariga ayaan raacay, wuxuuna i keenay xaafadda, waayo jaamacaddi ma aadin cabsi aan qabo awgeed. Kadibna ciddeyda ayaan imaaday, anigoo markaasi yaabsan oo fikiraya ayaa albaabka liigu soo qarqaraacay. Runtii Zaid ayaa markaasi u naxay. Aniga cabsi badan ayaan dareemay. Markaasi waxaan dhahay inaa albaabka furti waaye. Markaas intaan albaabka furin duleel yar ayuu lahaa albaabkaygii. Duleelka ayaan ka fiiriyay runtii, balse waxaan arkay qof aad meel fog joogo. Aniga markaasi waan naxay. Intaan albaabka furin ayaa waxaa jeclaystay inaan fikiro. Anigoo markaasi fikiraya ayaa waxaa jeclaystay inaan booliska markaas waca. Booliska ayaana garaacay. Kadibna booliska goobta way imaadeen xaafadeyda. Kadibna anigoo markaasi naxsan ayaa albaabka iska furay, balse waxaa arkay booliskii oo ninkii raadinayo. Kadibna gacantay ku soo dhigeen ninkii. Kadibna way xireen ayagoo markaasi gaariga saaray. Markaasi kadib way iga tageen. Aniga markaasi waa nafisay, waxaan isdahay ninka hadda laga kaxeeyay ku dhibayay aad iska nasatay, balse albaabka ma soo xirin guriga. Kadibna aniga ma ogeyn, waayo qalbigayga dhan wuu maqnaa. Kadibna waa caajis ayaan dareemay. Anigoo markaasi qabeysanayo musqusha aaday ayaa markaas qabeyska ka soo laabtay ayaa albaabka la soo qarqaraacay musqusha. Runtii waxaa ogaaday inaan guriga soo xiran, balse waxaa arkay arrin naxdin leh. Aniga Zaid ayaa u naxay. Waxaa arkay ninkii meesha tareenka ku arkay oo wejigiisa dulduleelo oo Zaid ku dhaarsan. Aniga markaasi waa qayliyay. Runtii cabsi badan ayaan dareemay. Markaasi aniga cabsaday. Zaid ayaa markaasi u naxay. Waxaas dhahay ninkan waan